wafti ballaaran oo hogaaminayay wasiirka xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyay deegaanka Yufle iyo degmada Ceergaabo waxaana waftiga soo dhaweyntooda ka qayb qaadanayay dhammaan haldoorka iyo madax dhaqameedka gobolka Sanaag iyadoo wafti laga hortagay degmada Yufle ee galbeedka magaalada Ceergaabo isla markaasna 20 kiiloomitir u jirta magaalada Ceergaabo waxaana waftiga markii ay soo gaadheen madasha soo dhaweynta halkaas ay mid u gacan qaadeen mas'uuliyiintii u taagnaa soo dhaweyntooda waxaana ugu horreyn halkaas ka hadlay haldoorka madax dhaqameedka gobolka Sanaag ugu horreynba waftigan ku soo dhaweeyay degmada Yufle iyo guud ahaanba gobolka Sanaag ku soo dhaweynayna wasiir dawladda wasaaradda maaliyadda wasiirka xigeenka gaashaandhigga iyo xubnaha nagaasimihi badbaadada qaranka iyo xubnaha dhammaan la socda soo dhaweynayna Yufle magaalada tuulada Yufle degmada Yufle baanu ku soo dhaweynayna soo dhawaada wasiirka xigeenka difaaca wasiirka xigeenka maaliyadda boos soo dhawaada caleemo qoyan gamca furan soo dhawaada degmada Yufle gobolkii isaguna waxa halkaas ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falaay waxaanu halkan degmada Yufle oo ka tirsan gobolka Sanaag aan ku soo dhaweynaynaa wasiirada kala ah wasiirka dawladda maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland mudane boos Maxamed Mire iyo wasiirka xigeenka gaashaandhigga jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamuud Warsame Jaamac dabadeed ku soo dhawaada gobolka Sanaag aad iyo aad baan magaalada madaxda caasimadda Sanaag ee Ceergaabo iyo degmada Yufle bay ku soo dhaweynaynaa halkan sidaad aragteen waxa jooga oo idinka hor yimi yani rabitaan iyo qiimo badan oo ay idin hayaan ilaa iyo 65 uqaal jibcaaqilo iyo salaadiin waxaan oran karaa waxa weeye waa dadkii ugu miisaanka weynaa soo dhaweyn ay sameeyaan waftidan oo ay kamid ahaayeen wasiirka xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Maariya ku xigeenka madbacadda qaranka Soomaaliland iyo sidoo kale wasiirka xigeenka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Boos Mira Maxamed ayaa iyaguna halkaas dhamaantood uga mahad celiyay mas'uuliyiintii soo dhaweysay dhammaan dadweynaha degmada Facaweyne Yufle inuu ugu soo dhaweeyay degmada Yufle waxaan leeyahay salaamu calaykum mahad aad iyo aad u ballaaran idinku jeedinaynaa sida fiican aydin caadada u leedihiin aydin madaxdiina qaranka u soo dhaweysaan hadiya habeen heeganka ugu tihiin waan idinka mahad celinayaa waxaan u soconaa hawlihii shaqooyinka qaranka ee wasiiradu ay hadiya jeeraale ku iman jireen gobolada dalka gobolka Sanaagna duwayaasha dadweynaha kale faraha badan ee loo muujiyay kalgacaylka ay noo hayaan ama u hayaan dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad barkhad maxamuud gedi telefishinka caalamiga ee Soomaaliland TV magaalada Ceergaabo